lagu soo degay moogtahay صح gabadha markii lagu soo degay sixirka bay waxa ka soo bixisay boorsadeeda maarta dharka bay ka soo faktay waxay ahayd shalmaa daraa الله sixirkii markay ka soo bixisay ee waxay dhahday cayuuni ayaa sixirtay tiri boorsadan cayuuni ayaa u gelisay tiri halkan waxaa geliyey tiri sixirka waa ayada ma fahanta wallaahi bilaahi tallaahi inaan been idiin sheegayna cadaymana waan hayaa haddaad doontiin whatsappkayga soo raadsada cayuuni waa sababtay u sixirtaan haddaba idiin sheegaya ayaa idinka dabageynaya waxa saaxiib asxaab ahaa best waa la garanaya laakiin meeshu qabiil ma aha soomaaliyay waxaan qabiil ha ka dhiganina ma fahanteen wax qabiil layraa ma jiro anaa hadda idiin sheegaya anaa hadda idiin sheegayo intii facebook igala socota maanta way igala socota inta igala socotana way igala socotaa beentu waa xaaraam wallaahi bilaahi tallaahi inaan been idiin sheegayna cadaymana waan hayaa haddaad doontiin whatsappkayga soo raadsada qofkii caddayn raba whatsappka qofkii caddayn raba facebookayga caadi ii soo wacda waxna tusi dhaha soomaaliya idinku naacdaad ka heshiin moogta warba ma hubsatiin amuunay hadda aniga friend ma nihin sax صح lambarkayga soo raadso facebookayga soo raadso wax tusi dha waa ku tusayaa ma fahantin فيسبوك igu jiraan okay caddayn marka waa ku tusayaa ila soo xiriir qofkii caddayn raba caddayn waa tusayaa aniga qof weyn baan ahay been ma sheegayo laakiin gabadhaasi gabadha ayadaa sixirtay waa kaa dhahaya baayo gabadhaasi gabadha ayadaa sixirtay haddaan idiin sheegayaa hadhow baan idiin sheegayaa intii rumaysatay rumaysay intii beenaysatay beenso waxba anigaygama gelin cayuuni waa oo maxaa tirahdaa shalay markay dhibta ogeyd haysatay qof kasta wuu ogyahay gabadhii saa ogeyd u garab taagneyd oo caawinaysay oo maxaa tirahdaa u halgamaysay foos ahayd gabadha ay maanta haa wallaahi foos bay ahayd qof walba wuu ogyahay adigan hadda maalinta aroos kala waayay inta kale se ula diyaarinaysa haa amuunay adigaan naftirkeeda xitaa gadaal facebooka foos u gal maalintii gabadhaa dhib ku qabsaday gabadhii u halgamaysay oo wallaahi inaana been kuu sheegayna aan seexanayn oo saaxiibtii waa gabar fiican saaxiibtii waa gabar wanaagsan saaxiibtii gabadhina ayaa waxay ayaday ahayd haddii runta la isku sheego waxa sixirana waa ayada sababtay u sixirtaan haddaba idiin sheegaya ayaa idinka dabageynaya waxa saaxiib asxaab ahaa best friend ahaa cayuuni ninka qabo iyo foos bal u fiirsada hadalkayga been ma ahane bal hadalkayga u fiirsada gabadhii iyo gabadhii markay saaxiib ahaayeen baa waxa dhacday naagtani abbaayay macaana gabadhi way ka shakisay weji bedel dhibaato walaashay marka waa iska gabar iska masaakiinoo qofkii foos baasta yaqaana uu yaqaana qofkii foos yaqaana uu yaqaana oo wallaahi inaana been idiin sheegin qofkii yaqaana uu yaqaanaade ma fahanteen walaashay walaad maskiin bay iskee daacad bay iskee way iskala socotaa gabadhi weji bedel dhib arooskeeda markuu abbaayay 3 beri ka dhiman yahay ayaa gurigoodaa la joogay moogta gurigooda markii la joogay gurigoodaa la joogay cuntaa la wada cunay arooskeedana 3 beri aa ka dhiman moogta allah caafitaankii insha allah way caafimaadaysaa insha allah way caafimaadaysaa wallaahi been idiima sheegay horta soomaalidu dhaar ma yaqaanuna war wallaahi inaana been idiin sheegayn oo bilaahi oo tallaahi inaana been idiin sheegayn ama i aamina ama ha i aaminina wallaahi been idiima sheegaya ama i aamina ama ha i aaminina adinkeeda qusaysaa laakiin wallaahi baan ku dhaartay inayna gabadhaas waa gabar soomaalida been aana ka sheegayn been kama sheegayo because waxaan ku helaya male laakiin wixii runa oo ilaahay og yahay baan idiin sheegaya waryaada cayuuni waa sixiraaley hataa idiin sheegaya cayuuni waa sixiraaley waxa gabadha sixirana waa ayada saaxiibteed waxa sixirana waa ayada sababtay u sixirtana foosaa ninkaan bartay foosiyo ninkaan baa is yaqaanay marka waxay istiriyeysa ninkii kaa hoos qaaday ninkuna waa nin lacag la moogta dumarkuna ilaahay saaxiibtinimo ma yaqaanaane waxay yaqaanaan dumaraa arnaagay naag hala saaxiibin naagay naag hala saaxiibin weligaa naagay naag hala saaxiibin xitaa haddaad naag nafta aa u hurtid xitaa wallaahi bilaahi tallah waxbay kuu maleegaysaa saasay wax kuugu maleegaysaa saas bay wax kuugu maleegaysaa saaxiibtinimo wax la yidhaahda ma jidho gabar haddaa saaxiib la tahay walaalay dantaada raaco ninkuma ogyaa sixirka ninkuma ogade ninku xooguu ka ogyi ninku xaggee ka ogya ninku waa nin maskiina abaayo ninku xaggee ka ogyi
naag saaxiib male haa wallahi naag saaxiib ma gasho ninku xal xaba ma oga ninku waa nin iska maskiina waxba ma oga ninku waa nin iska maasha allah lacag iska haysto waxa gabadhaasi u sixirtay yuusan ninka maadaama oo foos asxaab ay yihiin bal u fiirsada maadaama ay foos ninkan asxaab yihiin amay allah bal maxay ku falaysaa ayadaana bartay hedaya ayadaa bartay qobaal la kugu ayadaana hee bartay hadduu maqla insha allah wuu maqli doonaa insha allah ninka wuu maqli doonaa ninkii naftirkiisaba xitaa ay sixraysaa taas ilaa weji male waxayba sixirtay masaakiinta ilaa ninkii naftirkiisay sixraysaa ma diin bay leedahay diin male adduun iyo aakhiro cayuuniye adduunka iyo aakhiro shalana markaan ku baranayna wax xun baan kugu baranay maantana gabar saaxiibta ah oo dhib iyo dheef kula qaybsatay oo maskiin ah oo future lahayd oo mustaqbal lahayd ayaad sixirtay adduun iyo aakhiro cayuuniye haddaad imaqashin wallaahi baadan adduun iyo aakhirana cadaabtaad geli adduunkana inqaabtaas adduunkana inqaabbaad maraysaa because raaxa kuma joogaysid shalana waxaad ku soo caan baxday waan ogeyn oo adoo kale kicihaydidaad soo caan baxday maantana sixir baad ku darsatay sixiraaley baad tahay ummadda ilaahay dee waxaa lagu ogaaday meel walbaa la taga abaay ciddeedu intaas abaay wax badan ma ka soo wareegto haadhe maalin walba ciddeedu waxaa la dhihi jiray gabadhan saaxiibteeda sixirtay marka abaay dadku waxbay ciddeedu waa cid iska wadaadaa moogtahay waxay dhahayaan mataqaanaa ciddeedu waxay dhahayaan maya waxbaan hubsanaynaa annaga waxaan dembi ma rabna ay dhahayaan ma fahanta markii dambe waxaa dhacda abaay gabara gurigeena imaata gabadha markii gurigeena imaata gabadha waa lagu soo degay moogtahay gabadha markii lagu soo degay sixir bay waxa kasoo bixisay boorsideeda maarata dharka bay kasoo faktay waxay ahayd shalmaa daraa sixirkii markay kasoo bixisay ee waxay dhahday cayuuni ayaa sixirtay tiri boorsadana cayuuni ayaa u gelisay tiri halkan waxaa geliyay tiri sixirka waa ayada ma fahanta aniga foos walaasheed baan ahay foos waxa sixrana waa cayuuni xaqiiqa weeye taa shaki kama waxa dhacday marka aabahay waxay ahayd sheekada aabahay baa waxay ahayd wiigii ka horreeyay way fiicnaatay abaay gabadha caadi bay noqotay aabahay wuu imaaday marka ma fahantay aabahay markuu imaaday waxay dhahday aabow moobeelkiisii aan dadkayga iska wacdee marka ilaahay amarkiis aabo wuxuu dhahay aabo moobeelkaaga wuu dhumay ma fahantay waxay dhahday okay aabo moobeelkayga hadduu dhumo moobeel iisoo gad habeenkii markii la maraayo ee gabar walaashee waxay ka qaadatay moobeelkeeda otomaatigay cayuuni u wacday cayuuniyay saaxiib see tahay ma fiican tahay waa fiicnaaday dhahday haye ma fiicnaata haa gabartii walaashay imaata taleefonkii dafka siista hooyaha caayan haye macaan badane xanaaqa iga keenay haye qaali oo maadsan tahay taleefonkiya daf laga siiyey moogta taleefonkii markii daf laga siiyey abaayo habeenkii way seexatay subaxdii waxaa lasoo kacaa ayadoo tabtii ah hadalkeeda keliyaya abaayo marka wixii ku soo celisana hadal keliya ay la hadashay gabadhii lagu soo noqday way soo wacday cayuuni abaaye waa fiicnaaday see tahay wallaahi lambarkeeda korkay ka haysa ka war abaaye saaxiib wallaahi foos baaste ilaahay wuu caafinayaa ma fahanteen insha allahna way caafimaadaysaa cayuuni qurux ayaa la dhahay waxay sixirtay foos gabadhi dhahay oo saaxiibadeed ahayd ninkay guursataa tataa gabadhii isbartay ayay sixirtay maadaama ninkaasi ayada gabadhaas saaxiibnimo oo walaalnimo ka dhexeeyeen gabadhi jaamacadda markay dhamaysay way aadi waysaa lee qalinjibinta arooska cayuunina way kasoo qaybgeli ways gabadhaha loo ducey